بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد صلوات الله وسلام عليه وبعده وولالكن سلطان عبد الله محمود معادكم من Institute for Political Science and Knowledge sida balanta inoo ahaan jirnay maanta waxaan rabnaa insha Allah buugaan akhriyo reviewgiisa inaan la wadaago dhammaan ummadda Soomaaliyeed iyo bulshada Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan waxaan rabnaa maanta inaan la wadaagno buug la yiraahdo buugan aadka u qiimaha badan waa buug runtii aan isdhihi karno ummadda wax badan ba ka faa'iidi karaan buuga magaciisa waxaa la yiraahdaa Employ First Customer Second baa la yiraahdaa waa buug runtii aad iyo aad wuxuu u dhiirigelinayaa waxa weeye shaqaalaha iyo managerska iyo ganacsatada runtii waxa weeye waxaan isdhihi karnaa waa buug aad iyo aad u qiimo badan waxaa qoray nin la yiraahdo Finney nin la yiraahdaa qoray Finney taariikhdiisa kooban haddaan wax yar ka hadalno wuxuu buugan ka qoray wuxuu ka aaminsan yahay fikirkiisa wuxuu ka aaminsan yahay wuxuu leeyahay waa in macaamiisha laga horreysiyaa shaqaalaha rather than meesha ay dadkeenu ganacsatadeenu ama shirkaduhu inta badankood ay aaminsan yihiin in macaamiisha shaqaalaha laga horreysiyo laakiin rather than mention ninkan la yiraahdo Finney wuxuu leeyahay waa in shaqaalaha laga horreysiyaa macaamiisha macnaha Soomaalidan inta badan ama ganacsatadeenu waxay aaminsan yihiin in shaqaalaha laga horreeyo macaamiisha oo macaamiisha loo adeego macaamiisha wax la siiyo aysan shaqaalihii aysan waxa way aysan wax hamiya ama wax interest aysan siin marka Finney wuxuu leeyahay waa in laga horreysiyaa macaamiisha shaqaalaha waa in shaqaalaha loo horreysiyaa buu leeyahay Finney waa in aan aad u garanayno buugiisa qoro waa Employ First Customer Second waa buug runtii waxa weeye 192 page ingiriis fudud ku qoran loo baahan yahay runtii qof kasta oo waxa weeye Soomaaliya ama qof kasta oo waxa weeye shaqaalaha oo managers inuu akhrisado haddaan taariikhdiisa wax yar ka soo koobno wuxuu CEO ka noqday HCLT buu ka noqday company-ga caanka ah wuxuu ka noqday operation CEO waxaan ogsoonahay company-ga markuu iimaanayay inay shaqaalihiisu aad ay liiteen wax soo saarkiisa aad u liiteen marka ay generate gareynayeen waxay soo saari jireen sanadkii lacag gaaraysa 10 bilyan markuu 20 sano joogo waxay gaareen 5 bilyan inay soo saaraan waxay shaqaalihiisu noqdeen shaqaalaha ugu wanaagsan adduunka wuxuu bilad ku guuleystay oo bilad ku qaatay maamulaha ugu wanaagsan ee Hindiya runtii waa nin aad u naqaan marka wuxuu ku soo koobayaa Finney company-ga uu ka shaqeyn jiray wuxuu ku soo koobayaa buugaas oo dhan ku soo koobayaa marka wuxuu ka qoray qoraagu 5 qodob ku qoray 5ta qodob buu si faahfaahiyay qoraagu marka haddaan qodobka koowaad soo qaadano Finney wuxuu ku qeexayaa wuxuu leeyahay inta badan shirkadaha badankood waxa la qiimeeyaa shaqaalaha way shaqaalaha kor loo qiimeyn waay marka wuxuu soo jaaray barnaamij la yiraahdo mirror barnaamij la yiraahdo soo saaray sidee baa loo qiimeeyaa kuwa wax qiimeeya laftigooda sidee baa loo qiimeeyaa waa inay shaqaalihii kuwa sare qiimeeyaan kuwa sare waa inay kuwa hoose qiimeeyaan isdhexgal baa meesha imaanaya marka si uu shaqaaluhu ku aamino waa in barnaamij wuxuu soo saaray la yiraahdo mirror sidee baan u qiimeynaa kuwa wax qiimeeya laftigooda saan u qiimeyno marka waxa weeyaan qodobkaas aad buu u dheereeyay waxyaalo badan buu kaga hadlay waxyaalaha shaqaalaha looga baahan yahay shaqaaluhu waxyaalaha ay qaban karaan maamulaha iyo shaqaalaha waxyaalaha u dhaxeeya waxaas oo dhan buu kaga sheekay marka barnaamijka mirror baa la yiraahdaa uu ku qoran yahay buug aad buu u faahfaahiyay qodobka labaad wuxuu leeyahay trust wayna meesha timaada cadaalad waa in meesha timaada wuxuu leeyahay transparency sameey cadaalad si loo helo environmental iyo deegaan ku habboon wax soo saarku waa in meesha yimaado haddii aad trust samayso qofka managerska ama qofka CEO da haddii uu trust sameeyo cadaalad waxa hubaala oo la hubaa in uu shirkadiisu ay noqonayaan meel employee shirkadaha shaqaalaha ay noqdaan kuwa very talented kuwa aad iyo aad u habboon kuwa waxa weeye juice la inay noqdaan marka wuxuu leeyahay qodobka trust waa in la helaa si wax loo bedelo oo environmental horumaraysi loo helo buu leeyahay qodobka saddexaad wuxuu leeyahay is-hoostaga shirkadda saan u naqaano maamulihii koraa jira maamulayaal baa ku xiga kuwa kale executive chief baa ku xiga shaqaalayaal baa ku xiga waa sida standardka Finney wuxuu leeyahay upside down wuxuu leeyahay shaqaalihii waa ugu sareeyo leeyahay waa in iyagu fikirka ka yimaada waa in iyagu wax shaqada ka timaada waa in iyagu horumarka ka yimaada waa in iyagu dhaqaalihii ka yimaada in wax kasta ay ka yimaadaan buu leeyahay shaqaale marka upside down shaqaalihii buu ugu horreysiyay iyaga fikirka ka imaanaya iyaga xilliga la shaqeynaya ka imaanaya iyaga profitka shirkadda go'aaminaya iyaga wax kasta ka shaqeynaya waxaas dhan buu upside down ku sameynaya qodobka afraad wuxuu kaga hadlayaa
roolka of a CEO da maamulaha shirkadda buu kaga hadlay in la bedelo maamulaha shirkadda responsibilitygiisa in la bedelo in waxa weeye maamulihii marka hore CEO da wuxuu dhihi jiray sidee baa shaqaale fiican u keensanaa sidee baan shaqaalaha u erinaa sidee baa shaqaalaha kee ku liita kee baa shaqaalaha waxa weeye ugu xun kee baan erinaa sidoo saa dhihi jiray Fernando wuxuu leeyahay upside down sidee shaqaalaha u hormarinaa sidee shaqaalaha waxa weeye training u siinaa shaqaaleena kee baa ugu wanaagsan kee baan bilad siinaa kee baa bonus siinaa kee baa shaqaaleena ugu wanaagsan yaa ugu fiican yaanu bilad siinaa xagga meesha laga eegi jiray in shaqaalaha xun la eriyo mid aan waxba la siin Fernando wuxuu leeyahay shaqaalaha sidee baan ku horumarin karnaa sidee xirfad u siin karnaa sidee waxa adaptationka waxyaalaha jira shirkadda u fahmi karaan sidee trainino badan u siin karnaa waxaas oo dhan buu ku qeexaya qodobka shanaad ugu dambeeya waa qodobka badankood inta badan aan la fahmi karin waxa waa misunderstanding isfaham waaga shirkadda dhex ka jira waxaan ogsoonahay shirkadda dhexdeeda waxa waa isfaham waaga ka jira maamulihii iyo shirkadda isma fahansana shaqaale dhexdooda isma fahansana ninka u sareeya iyo shaqaalayaasha isma fahansana maamulihii waxa way kuwii kale ma fahansana maamulayaasha isma fahansana shaqaalaha dhexdooda isma fahansana marka wuxuu ku qeexayaa how to understand misunderstand sideeba u fahmi karaa roolka of a CEO da ninka CEO da sideeba u fahmi karaa isfaham waaga shirkadda ka dhex jira marka wuxuu leeyahay misunderstanding badan oo shirkadda waxaan ogsoonahay hadii misunderstanding badan oo shirkadda uu ka jiro waxa la ogsoon yahay in shirkadaas hoos u dhacayso in quality-geedii ganacsigeedii dhaqaalaheedii in uu midba midka kale ku xumeeyo misunderstanding la isfahmi waayo maamulihii kuwii kale fahmi waayo shaqaalihii kuwii fahmi waayo marka wuxuu ku qeexayaa buugan oo qodobo badan kaga hadlaya cutubbo badan buu kaga hadlayaa sida how to understand misunderstand find understanding misunderstanding sidee baad u fahmi kadaa waxyaalaha la fahmi karin oo qofka role of CEO da looga baahan yahay marka qodobada shanta qodob buu ka hadlayay waa shanta qodob ugu wanaagsanaa qodobo yar baan kasoo qaadanayna oo waxay kamid yihiin markasta ay shaqaalahaaga wax bartaan markasta ay shaqaalahaagu isbedelka ay la socdaan reputation sameeyaan markasta ay shaqaalahaagu upgrade ay wax fahmaan inay wax badan leen adapt and apply u leeyahay marka shaqaalihii uu kala aqoonsanayaa saddex qaybood transformers la soil iyo waxa weeye insitters buu aqoonsanaya transformerka waxa weeye waa kuwa shaqaalaha Fernando saddexdaas uu kala aqoonsan transformers waxa weeye kuwa wax bedela inta badan waa kuwa wax ma yaqaan shirkadda qaabka lagu shaqeeyo ma yaqaan xilliga loo shaqeeyo waxa ku programsan sida shirkadda loo horumarin lahaa sida transformers qodobkan wuxuu sheegayaa waxa wax bedelayaal ninka la yiraahdo Fernando wuxuu u aqoonsanay saddex qaybood transformer la soil iyo investors qodobka transformer wuxuu ku sheegay wax bedelayaal ma yaqaan waqtiga loo shaqeeyo shirkadda ma yaqaan habka loogu shaqeeyo ma yaqaan waxaasoo waxay ku aaminsan yihiin ama waxa ay ku programsan yihiin sidee baan shirkadda u horumarinaa shirkadda sidee waxa weeye suuqa u gaarsiinaa sidee baan uga dhignaa shirkad aad u horumartay bay ku mashquulsan yihiin kan labaad wuxuu aqoonsaday la sooya buu yiri waa dadka ruuxda waayay ama ruux laawayaal baa la yiraahdaa waa dadka inta dhaleecaynta badan aniga maxaa iga galay aniga maxaa iga shaqo jira aniga maxaan u hadlaya aniga waxba igama gelin waa iska shaqaysanaya iyagu maxaa iga rabaan anigu maxaan ka rabaa wax noocaas oo kale la sooyal baa aadka kuwa dhaleecaynta badan qodobka saddexaadna wuxuu leeyahay investors waxa weeye waa qodobkan waxa labada midna xaggana ma aadaan fikir ma keena waxba ma keena shib waa aaminsan hadal male sababtu waxa weeye waxa ay ilaashanayaan in waxa weeye shaqada laga eriyo kuwana lama socdaan waxba shirkadda kuma darsadaan shirkadda waxa weeye waxay ilaashanayaan shaqadooda kaliya in laga eriyo ka baqayaan marka saddexda qodob uu aqoonsaday transformers la soil iyo investors tamardu waa kuwa wax bedela inta shirkadda waxa weeye qaab waxa weeye xilliga la bedeli lahaa ama horumarkooda ka shaqeynaya kuwa la soil waxa leeyahay kuwa ruux laawayaasha ama ruuxda waayo baa la yiraahdaa waa kuwa 24 saac maamulka ka sareeya eedeynaya dhaleecaynaya wax ka sheegaya wax noocaas oo kale kan kale investors baa la yiraahdaa waxa weeye labada midna ma aha shib shaqadooda laga eriyo bay fiirsanayaan shib ma hadlaya xaggana ma shirkadda waxba kuma soo kordhiyaan waxba ma keenaan hawl ma keenaan shaqo ma qabtaan shib oo kaliya marka Fernando waxyaalaha uu kala ka hadlay waxa kamid ah trust aan qodobka hadda soo sheegnay is-aaminaad sidee baa shirkadda dhexdeeda is-aaminaad looga sameyn karaa marka wuxuu sheegay afar qodob buu kusoo koobay waa in hadii la rabo shirkaddu in ay kalsooni isku qabto hadii la rabo in la is-aamino transparency in meesha yimaado wuxuu yiri afarta qodob waa in laga helaa role of CEO da iyo dhammaan shaqaalayaasha iyo managerska iyo departmentyada
qodobka kuwaad credibility wuxuu leeyahay please shaqaaluhu hadduu shaqo qabto please shaqadiisa ku aqoonso haddii aadan shaqadiisa aanan ku aqoonsan mar damba kuma aaminayo wax dambana kuu qaban maayo marka please and please qofka credibility qofka manageriska ah please shaqaalaha ku aqoonsa shaqada ay qabtaan waa fiican tahay good halka ka sii wad shaqo fiican baa noo qabatay maasha allah jazakum allahu khayran qofku waa in la abaal mariyaa qodobka labaad reliability waa in aad tustaa shaqaalaha inaad ku tiirsan tahay idinka idinku tiirsanahay shaqadu idinka idinku socotaa shirkadda idinka idinku socotaa hadday aaminaan shaqaaluhu hadday aaminaan waxay leeyihiin financier wuxuu leeyahay shaqaaluhu waxayba leeyihiinba shirkaddan anay nagu tiirsan tahay annagaa horumarka keena annagaa dhaqaalaha keena annagaa wax kasta keena annagaa go-aanka keena waa sidii hadda ayaan kusoo sheegayna qodobkii ishoostaga shirkadda maamulihii ugu sarreeyo maamul ku-xigeenka ku xigo shaqaalihii ay ku xigaan waa tu financier upside down yidhi shaqaalaha ugu sarreeya shaqaalaha wax kasta keenayo fikirka iyagaa keenayo go-aanka iyagaa keenayo horumarka iyagaa keenayo uu leeyahay qodobka saddexaad qiimeyn waa inay jirdhaa evaluation waa in las qiimeeyaa shaqaalihiisana wuxuu qiimanaya waa haddaa qodobkaan sheegayna mirrors buu la xiriiraa sidee baa loo qiimeeyaa kuwa wax qiimeeya laftigooda marka shaqaalihii kore waxay qiimeynayaan kuwii hoose kuwii ka hoosena waxay qiimeynayaan kuwii kale qiimeyn baa marka jidha qodobka afraad motivation waa in ay naftoodu dhiirigelsan tahay shaqaaluhu heer waa in ay gaaraan shaqada ay ayagu isku danaan aan loo dirin heerka waa inay gaaraan financier shaqaalahooda shaqaale ugu yaabka badnaa bay ahaayeen waxa weeye one minute bay waxay kusoo saari jireen conton iyo billions dan bay soo saari jireen caalamkana laga iibsan jiray marka halkan waxa weeye qodobkan kale wuxuu kusii sheegayaa misunderstanding isfaham darada shaqaalihii isma fahansanaa maamulkii shaqaale isma fahansanaa departmentyada isma fahansanaa ninkii sare kuwa hoose ma fahansanaa shareholderskii ma fahansanaa dadkii kale misunderstanding baa jira marka wuxuu leeyahay how to understand misunderstanding fan understanding misunderstanding uu leeyahay sidee baa loo fahmaa waxyaalaha aan la fahmin rolka of CEO-da uu leeyahay marka waxaan idinku waaninayaa ama idin sheegayaa dadka managerska dadka maamulayaasha shaqaalaha shirkadaha waxa weeye waaxda shaqada iyo shaqaalaha in ay buuggan ay very important inay u akhriyaan buuggan waxa ku qoran waxa weeye waqti badan kaa qaadan maayo 2 days baa wax dhici karta less than 2 days inuu kaa qaato akhrintiisu marka wuxuu ku qoray ama wuxuu qeexay qoraagu waxyaalaha uu HCLTD waxyaalaha company ku qabto waagi marka wallahi buu aad iyo aad u fiican weeye waxaan rabnaa waxa weeye inaanu insha Allah ummadda Soomaaliyeed la wadaagno waxa weeye sanad asbuuc kasta buugaan akhrin reviewgiisa inaanu la wadaagno please subscribe page-ka macadka midnimo Institute for Political Science and Knowledge subscribe share si loo la wadaago xogta iyo waxa weeyaan iyo casharada waxa weeye online ka ah. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.